السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان واني ودا سلامة سلام كدب waxaa kusoo dhawaatay YouTube channelkayga maanta waxaan hayaa recipe aad u iisasan bad macaanka ayaabay sida ugu talagalay ramadaanka insha Allah waa sambusa ka sameeyay beef ila socda insha Allah maasha Allah hilibkan waxa waa hilib ka soo gata xalaalka oo $5 u xiran yahay I think waa 1 pound camal alxamdulillah waxaan kaliya isticmaalaa waxa waa hal xirmo oo hilib waxaan ku dari doonaa koob barkiisa oo biyo dan cabaar yar ayaa hilibka iska karinaya insha Allah because waxaan jeclaa hilibka inuu si fiican iiga karo soo hadhoodii inuu igu noqonin ceerin marka sambuska ku shubi doono iduu Ilaahay idmo الحمد لله هلب كسيداري وإن نقضوا هلب فرفرن وما شاء الله آد وكرسن سو حدرتا waxa sameynaya in yar cusbaan ku daraya cusbada kadib waan walaajinaya sidoo hilibka si fiican cusbada u wada gaarto dhamaan ما شاء الله hilibkayga wuxuu ii noqday sidaan rabay hadeertan waxa sameynaya all the spices haysta ku darsanaya waxba ka walin cabirka iyo dhamaan iyo magaca kulli waan soo wada qoraya description box-ka insha Allah hoos la fiiri meesha magacayga ka hooseeyo fiiri also if you haven't subscribed yet please subscribe support your sister share like if I jecesha waxa aan sameeyo ii comment garee waxa rabtid inaad sameyn doono insha Allah YouTube channelkay insha Allah hadeertan waxa sameeyay in yar saliid alag hal qaad yar meesha ku shubtay because waxaan jeclaa basasha inaan shiilo hadda waxaan ku shubay in yar oo garlic laba garlic si fiican u crush gareeyay iyo basal cagaarka like mid cagaarka oo saddex xabo si fiican u jarjaray ayaan u yaryareeyay sida sambuuska camal la sameey basasha sambuuska camal ما شاء الله waxaan yara shiilaya because waxaan jeclaa inay xoogaa caraf ka soo baxdo dan hadeertan waxaan ku darayaa basashi laba basal oo weyn oo caadi aan jarjara waaye sida u yaryareeyay asana ma sha Allah because waxaan jeclaa basashi inay ceerin igu ahayn sambuuska dhaxdiisa marka la cunayo soo hadeertan kulli isku wada qasaya and I'm gonna let it cook for like 2 minutes ma sha Allah ilaa ay ka noqoto soft but inay noqonin biyo because hilibka waxa u baahan tahay hilib qalalan oo ma sha Allah oo caraf badan oo hadhowda sambuuska marka ku shubtid ka noqonaynin qoyaan dhaxdiisa insha Allah sidaas ila socda ما شاء الله finally hilibkeenu waa noo diyaar hadda waxa kaliya aan sameynaa waxa ay jeexiro liindanaana ku miiraa because I like dhadhanka liinta hilibka siinaysa ma sha Allah so after that waxaan kaliya aan sameynaa waxa waa hilibka waxaan jeclaa baaquli kale inaan ku shubto sidoo iigu qaboobo insha Allah so ما شاء الله hadeertan waxa kaliya aan sameynaa waxa waaye intuu hilibka ii qaboobayo fooliyada burka u isticmaalay koraa ka marin lahayd gluuga camal waa 4 qaado bur caadi iyo koob barkiisa biyo isku qasay ma sha Allah sidii igu noqdo very soft but also xoogaa yar biyo adeeg u ahayn saas oo kala ma sha Allah alhamdulillah my workstation waan soo diyaarsaday burkii fooliyada aan marin lahay hilibkii sambuuska iyo fooliyada aan isticmaali lahay ma sha Allah egg wraps isticmaalaya mida doontid oo aad ku dhow heli karta isticmaali kartaa ma sha Allah ani midaan haystay corner kale ka jaray sidoo igu noqday sambuus saddex geesood oo aad u qurux badan sidaas u sameeyay bahalkaas ka jarana waxaan u sameysanayaa chips ahaan hadhowday dirtan waxaan sameynaa waxa waaye sambuuska laabanayna fooliyadii in yar buraa gacanta ku soo qaaday corner ka mariyay geeska kala u keenay all you have to make sure is in ay ka dulalmin meesha make sure all the corners everything ina si fiican ugu xirtid soo hadeertan in yar oo hilib saddex qaada camal ku shubo because I like hilib badan inuu sambuuska weynaado ma jecli sambuus yar oo sambuus u eg saqiir so ma sha Allah waa kana sidaas u sameynaysaa gudaha si fiican saliida ka xir burka mari marka burka amarisid make sure all the corners are sealed and after that waxa sameynayna isku keenayna I like also the extra sides ina wax mariyo isku wada keeno sambuuski wax karanji inay waxba ka soo jeedina jecla oo hal sambuus ma sha Allah wada noqdo see perfect
inshallah. This is the fun part for me. Sambuusina waa diyaar. Saliida dabka waan soo saartay. Xoogaad kadib markay kululaato waxaan sameeyay sambuuski masha Allah. Fry gareynaya. Waxaan u fry gareynaya kiskis hal mar ma ku wada sameynay because marabi birta inay cariid igu noqoto oo sambuuskana igu wada gubto. So inshallah make sure like 6 mise 5 ahaan camal u fry garey. Birtaada day weyn tahayna halahi deeqaysa ba overcrowded ha ka dhigin inshallah. Mashallah, every 10 to 15 seconds sambuusku waa gedinaya sida kala qurux badan igu wada yeeshto oo igu guwani. Inta waxaan ku haystaa baastamiirka napkin aan gashtay sidoo saliida iga qalajiyo marba ka soo bixiyo. Marka ii qalalana waxaan sameynayay saxanka aan ku serve gareyn lahaa mashallah aan ku sharxanayay. Alhamdulillah hadeertan sambuus dubowi waan soo dhameeyay sidoo u qurux badan ama u maleysan kartid. If you try it, please let me know inshallah. And if you haven't subscribed already, please do support your sister, like, comment, share. Thank you.